السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنا ونكسر إلى أنتي بداودياش قيمة بدن كسر لبعض يوتيوب كداون السنوا عارفاي وفيشيا ما أنتوا حايدي ونا أم ما أنتوا حكاد دونا أنيجي صاحبك عارفاي وحن كشكل دونا أما سؤالك ويدي دونا تاريخي وصوم مري ما دام كان أوكي ما ذي بدي أدنى أوجه مقدش كسوقين هاي وحربا إنا مركا أوديو سؤالك ويديو نلاش بديها iyo nolosha xamar inkastoo aan ku hormari doono nolosha baadiyaha carfay ku soo dhaw YouTube-ka waa mahadsan tahay waa dhawahay kun iyo koob jeer soo dhaw Abu Ibrahim ma sha Allah oo ku soo dhaweynaya mar labaad carfay marka waxa ku weydiinaya nolosha baadiyaha taariikhda asoom baadiyaha sida loo noolyahay inkastoo baadiyaha in badan aan ku soo nooleen inta aan ku soo dhamaatay aan u maleynaa in xamar waqti yar aad joogto bal adigoo nolosha baadiyaha noogu sheekeynayo oo noo soo koobayo waqti yar noogu soo sheegayo faahfaahin yar nagsi noloshaydu baadiyaha horta aadna uma badnayn waana badnayd oo hadda lama dhihi karo ma badnayn sax ilaa iyo 10 iyo dhowr sano ku gaara baadiyo xoolaha ilaali jiray oo ari iyo geel iyo lo intaas waa ilaali jiray oo saddexda soo ilaali jirtay saddexda waa soo ilaali jiray ma sha Allah aan soo ilaaliyo dhuxulna waa guri jiray oo iday dhaqankaada ma ku dhinaad hadii saddex aan soo ilaali jirtay ari oo xoolaha badankooda waxa waa Soomaalida dhaqan ay leeyihiin oo dhaqanka Soomaalida way waxa lagu garto ma sha Allah bal ino sii bal nasiiba u leedahay hadii xoolaha soo dhaqataan kulli waa ay runtii ay marka dhuxulna waa guri jiray oo dhuxul shidowga baadiyahan ku soo bartay sax baadiyahan ku soo bartay adiga abaar oo waxa dhacday oo kala guur amal xoolaha baabi'isay xoolaha dhanba arigi geelku isbedel laga dareemay oo geela u roonay adiga lo abaysan weyn iyo xeeday ari waa waxas iyada iyo waxaas waa ahaadeen waa gart markay dhacday baahar waxa la yiraahdaan sidii jiray dhuxuliilad dhuxusha oo laga sameeyay qoryaha laga gaabihay midii waxa la sameeyay geedud ma ka baxay geedud haduu tagamaan markaas geedud jira ma jiro qorac iyo waxa ka baxay qorac iyo maray iyo sarmaan iyo cadaad iyo sarmaan iyo marayna geedada cadaad iyo qorac iyo waxyaabo noocaas la yiraahdaa haydi waa gartay wad bal waa sheeko cusub waay maqlan geedaas ay geedaas aan shidi jiray maalin maalmaha kamid ah dhuxuliiladan shiday asaan waxaan u soo aaday xamar waxaan soo qaaday magac mar dhuxul igu soo cilmi magac saxaaba dhuxul magac macna heelid ma dhada magac saxaaba heelid ma la hiisha ariga hiish godan inta la qodo soo qoryo lagu rido waxa la suubihaa hiishi iriga inta lagu karshuba dab lagu qabaa meeshaas waxa ka imaayso hiishaas markay gubato dhuxul waxa ka soo baxaysa dhuxusha tan oo laga sameeyo kala xamar laga sameeyo dhuxushaas amal laakiin qaabka loo sameeyo waa kadib waxa ku arnaa in tiirka la suro la carro waxay jingada lagu wareejiyo kadib la shido maalmo la suugo asaguna booska carrada waxa laga dhigaa hiil hiisha arig sambi hiishi iriga hiish macnaha waxa ka wadaa waxa laga yaabaa dadka qaar inay faahfaahin daabanayo hiish macnaha waxa ka wadaa saxrada oo ariga ka wadaa ariga oo saxrada saas fahmay waxa laga yaabaa dadka qaar waxa dadka baadiin ku soo wada kara marka saas fahmay in hiish laga wado dadka qaar yaqaan laga yaabaa baadiin ku soo dhaqmaan hiish waxa laga wadaa saxrada macnaha ariga ama geelka saddexda ku jirta ma looda kuma jirto laakiin ariga iyo geela caadi waa isku bushuba macnaha tan macnaha mid looda waxa laga yaabaa taas waa fashil waayo waxa waa saaraba leeyahay magaca xama kala ma tarto si fiican inkastoo dadka baadiyaha si dheer degan inta xilliga oo roobka jiro ee looda xaarta aruursadaan daaxa dadku degan ee hadan badarka ku karsadaan qoryaha ay arkeen badara lagu karsadaa miya badara lagu taas faa'iidadaas guuleeda daaxda oo zaa'idka dadka degan qoryaha laga helin waa tan laakiin ma loo isticmaalo tan laakiin waa gartay isiibad yaa ku siibad marka ceel macaan u soo qaaday qoryihi dhuxushi oo hiisha laga shiday si fiican markii aan u soo qaaday dhuxushi waa gatay oo markaasaan hadda ceel macaanka iyo markaas ku guurayso beledka waa la inta tilmaama maahan aniga ma aqaan waa marka hore tilmaam ahaan lagu sii jiray laakiin mar aan soo dhaqaaqado beled baa soo aad markaas ku maalinkaas ay guurayso weerigay maalinkaas ay ugu horeyso taariikhda ku aadinta markaas ma loo sheegi kartaa taariikhda ku aadinad ma qana xilligaas waxba taariikh ma xilligaas taariikh illa laakiin lamada kun iyo 6 meelahaas inay ku aadineedaan jecela aan jecelahay waliba ma hubo aan jecelahay waa markaas waxa laga yaabaa markaas inaad taariikhda si fiican u weyn laakiin dadka baadiyaha badan waxay ku xisaabtamaan ma fiiriyaan taariikhdan waxaas maadaama ay aqoon waxay ku xisaabtamaan sida bil caali bil waxa
يد واحد سفيان قياس حوغا قياس سفيان ايه marka waa keenay waa gaday waxana waa jirtaa abaar inda damaga oo wali helay oo caadi hena marka dhuxusta soo qaaday waxa ka rabtaa inaan beesa ka qaado kadib beelad xaga macaan arigi baadi inaan soo ku gato maadaama abaartii meeshii ay saameysay in bedelkeeda abaarkaas ku ibtirada kala jirtaa say markaas waxay tahay walax dad meel isugu imaa walax la siihayo dhan waxaan u qaanaa معناها دي ميل اسكو imaado oo walax lagu cunaaya dhan waxa way isteen sabta sab inay taa maahana ma baaqaan badara inta la soo baxshaa la garto waa taariikh kale oo macnaha caadiyan qofka soo dareemay gataa malaya waxaan arkay bahal maqaayada asi ay kala socoto saxmankan idin oo afafka lagu siihayo dadka badan oo yiriiska si fiican marka aniga waxa gashay dadkan badankan siihayo xoog badana adoos xoog ay helaan waxa la yaabto dadkan oo macnaha wax loo qiiminayo la yaabto aan la yaabo oo markii kugu horiso waa jirta marka wax kugu horiso waa la yaabay qasab waa waxaan iri si badaran cunaysi si fiican asal irxaan ku siiya nin agteeda baasta ku cunaa baastada magaceeda aad uma aqaanin ninkan badar ku cunaayo kalaysi oo baastada markaas ku wareysan baastada markaas ay ku wareysan waxaan fiifinta jiida waxaan waa adiga waa ila raayso ay soo carcarfooysa magaca dhigto waa ka maqlay laakiin muuqada ugu cusub gool waxa ku soo gal macnaha hore aad u arkin ay soo galay marka uu soo galay waa lay keenay waa cunay inta cunitaanka wada malaya ma aga jeedan si baalkan ay soo qabo banaha xataa markaas magiciisa taqaanay waa aqoon gooni umari laakiin inta ku waayaan una cafo waay aan u jeeda baalka ay soo qabtay wala ay soo qabtay sax badarkina waxoogaa waa dhinac dhaban yahu wax jaale igama dhin malaygaan qurtu tubsadaas leeyahay arooyay laftaan kugu dhagan aray arag dabaalka laftaan kugu dhagan laftaan malay laftu ku jirta leeyahay kugu dhagan amna madriisnid bidacada ka taa madriisnid kiyaab ciid ugu dilaabaad wuxuu gaacishado waxaan aad cunay kii ku dhahay macnaha malayga ku dhahay macnaha laftii ku dilin waxa isdhaad ama ka cishinoyaa ama asoo camal ay gashaba gurama ka soo galay waa qaadaan ilita ka baxay uma qabo inaan wax lees ka rabo si fiican wax ma aragta baabuurtan leeyahay TN baabuurta waqooyigan aad baabuurta weyn TM-ki waa waqooyigan aad si fiican waxaan arkay adiga wuxuu leeyahay mugtaa leer badan cagaar leh oo bari oo adiga kala badan leh ariga baadina waxa laga sitaa mataan faynos حتى تصمج جرا waxaas hadda oo macnaha tii janta inta lagu daar gaaska inta lagu shubo gaas u dhimaan gaas ka raba gaas inta lagu shubo janta laga daaraa leefada lahayda ka shaqeeya leefada waxaas markaas waxa u maleynaa ka hor isticmaal jir 2000 meelaas isticmaal jira maleynaa 2000 waa ka soo horeysay waaga hadaan faynuusti shaqaysa agtayna xagga baadiyo koronto ma jirto leena dhibka jira taas ka rabta waxa iga sharay ninka nala ilaahay u sahla nalalkan alkooxaba makaasi doonaa oo waxa ku mashquulsaba baawarka TM-ka hay leerarku waa weyn ay ka soo jeeday adiga wixii oo madayaan waa faraja macnaha joodinkiyaaba hawiga gasharu ina mid kamid lagu siiyo ina mid kamid la isiyo waagar malaygana waa ku waatahay ina ma qabtaa kaanu waa ina herbaadinimada herbaadinimada dhabeelada waa ruuqo waaba malaygi banaha u soo baxday ana baabuurka saan u daadeerkiisa tiraay naagti lahayd ay timaad maqaayadii hay soo daba kacday nab badarka ka socon badarka aan ka socon isi beesaday wariya adu waxa umaleysay ina safka soo baxday ina maqaayad soo baxday saaqa miisan tahay in macnaha ina maqaayad ka soo kaco qabo ma baabuur leerkiis tiri lahayd horta haye meesha soo istaagtay wallahi nina wax ugu ilaahay cadaamina leeyahay ka meesha naagti qabsatay isi beesaday يا حياة باسدة. إنت أتكلم تري بسم الله قدام. باسدة حياة تري أروي باسدة هذا نسوع أنت يصير. إنت أتكلم كني واحد صوعنا يلاها عندنا ما يصير محاول. مقاي هذه مقاي ذو يا تانو لما برانا. حسب حاول واحد أنا قندي بكسر ليه. كسر ليه نموكتر. أردي أنا كسمان قبل ما أنا ما ولا حد بسكرت تكويا لين أنا بتات هم بقى بمي. واقرت
waxay iga raaracday waa la iga fujiy صح taas arintaydi horta igu soo horeyso mugan beled imida koo arintaas beled ugu hadda naagti maxay kugu samaysay ma ku fasaxday ma hore igama fasaxin naagti say iga raaracday adiga dad qaraabana intii i geeysa leer iska day baadi wadan ka yimid ama ma ogay dad qaraabina meesha ma shubo wada degan intaas aan ku badbaado maana waa la kalan kalila waa taariikh caadi ah malaga yaaba dadkana daabanaya in macnaha taariikhdaas ama taariikh u dhow inay ku dhacdo malaga yaaba walaga yaaba qaar laga yaaba waxa jira oo baadi iska jiray oo macnaha oo baadi in doq sida amal ku soo qaatay marka xamad soo galay hatta taariikhda sheegayso mid ka daran ku dhacay waa dad badan oo hatta walaga yaaba dad badan oo aan la deeno alaabaha lagu dhaqdameyna iska jiraan alaabaha mida kala marka dadka qaar waxa laga ku dhacday adii oo ku dhacday oo la cishoonin commentiga ilaa loo soo qortaa rajayna insha Allah waana arki doontiin kullee waa insha Allah way taas halkaas lagu fasaxay lagu dhaaf meesha saa lagu dhaafay waaga duubarin arigayga baadiyaan biiska aado gadaal aan noqoto adiga gadaashida waxa gadatay waa noqotay waa noqday abaas wixii soo dhacay saasay ku okay way kullee taariikh caadi ah waay waxaan u maleynayaa inay ka qusubsii doonto ninka taariikhiisa ma yaro waxa soo wadnaa ka sii daran waxa la yiri xilxilani ma hooyada jirtay oo waxa soo socday webiga weyn miya aan jira maleynaha ninka waxa soo wada ka daran maleynayaa dhageysi doontiin